السلام عليكم وساعتكم ku xiran barteen youtube-ka telegramka waa aniga Shafii Daawud sida lagu socotaa Goldie isbuucyadan la soo dhaafay waa ka mashquulno wax video kamaana diyaarin sababta ugu mashquulno wax kale ma ahan wax isku daynay in waxa xoog ka saarnay application-kii warbixintiisa insha Allah waa idin la wadaagi doonaa Goldie sida lagu socotaa bishaani waxa ugu dambeysay video Goldie ka diyaariyo month balse laakiinse Goldie trade ID-giisa iyo waxa idin kula wadaagayay telegramka Goldie waxa aragtaan trade ID-gii ugu dambeeyay idin la wadaagay Goldie waxa idin dhahay still sell waaye Goldie uu soo daatay welina sell waaye idin dhahay wuxuuna pullback ku sameynayaa double bottom-ka daily and then meeshaas in laga celiyo ayay u badan tahay idin dhahay Goldie hadeertaa markaad timaadid chatkiisa Goldie maxaa macquul isbuucani markaad geysid daily markaad geysid waa kana waxaad arkaysaa markaad double bottom-ka cabiratid neckline-kiisa markaad cabiratid Goldie wuxuu marayay markaad trade ID-yaha idin la wadaagayay meelahan camal ayuu marayay kadib waxaa idin dhahay still sell waaye waxaana u badan tahay inuu pullback ku sameeyo neckline-ka double bottom kadibna meeshaas laga soo celiyo Goldie waxaa aragtaan in ilaa iyo 200 oo bibis oo daatay kadibna uu kor soo aaday ilaa iyo 500 oo bibis oo waxaa aragtaan markuu jibiyo kana neckline-kii pullback ayuu ku sameeyay hadeertaan ayuu Goldie wuxuu sameynayaa dhaqaaq kale oo buy ah in uu sameeyo ayaa macquul sidoo kaleeto dadka isticmaala Fibonacci oo kaleeto hadda markaad saaratid Fibonacci oo kale waxaa arkaysaa meesha laga celiyo inay tahay 618 waana qiimaha meesha ugu fiican oo laga celiyo waa kana waxaa aragtaa in laga celiyo 618 Goldie hadeerta wuxuu sameynayaa kale balse laakiin hal mar inuu toos u dhaqaaqo kaleeto macquul ma aha sidoo kale inta waxaa arkaysaa markaad si fiican u fiirisid in support ay tahay markaad hadda calaamaysatid oo kale waxaa arkaysaa in ay support tahay oo Goldie ayadan meeshaas waa laga celi karay Goldie hadda meesha oo marka waxaa sameynaysaa Goldie isbuucan hadeertaa maxaa macquulaysaa ugu faa'iidaysatid Goldie waxaa sameynaysaa meesha oo maraya hadeertaan ayaad waxaa dhiganaysaa horizontal marka horizontal ka dhigatid Goldie meesha laga soo celiyay waxaa arkaysaa in meel adagta oo resistance markaad fiirisid sidoo kaleeto korna waxay ka tahay support ay ka tahay Goldie hadda waa kana meeshaas ayuu marayaa sidoo kale waxaad sii geysanaysaa taamid yar si aad u sii ogaatid si aad uga faa'iidaysatid hadeerta markaad timaadid taamiyada yaryar waxaa arkaysaa in waa kana meesha hadeertaan calaamadeynay oo horizontalka dhigan 4 hourka markaad timaadid waxaa arkaysaa in ay tahay support kadib waxaa calaamaysanaysaa supportka ayaa calaamaysanaysaa horizon ayaa dhiganaysaa markaa sidaad samaysid aad supportka dhan calaamaysatid Goldie hadeertaan waxaa arkaysaa in meeshaan uu ku laalaabtay waa kana oo mar ayuu tagay waa laga soo celiyay mar kale ayuu tagay waa laga soo celiyay mar saddexaad ayuu tagay hadda mar afraad ayuu kusoo laabtay oo hadda waxaa macquul ah in uu jabiyo oo pullback ku sameeyo oo kor ka aado sidaa hore idinku sheegan waxaa idin dhahay Goldie markuu meel ku laalaabto marka dambe uu jibinaya ilaa iyo 4 mar sidoo kale ka aragtid candle-iska uu ku socdo 4 hourka waxaa aragtaa inuu strong buy candle-ka ugu dambeeyay oo xirmay inuu yahay strong buy Goldie wuxuu kusii sheegayaa in uu kor sii aaday Goldie in uu kor sii aaday ayuu ku sheegayaa marka waxaa sameynaysaa hadda marka wuxuu ku dhex jiraa zone-kaas ayuu ku dhex jiraa markaad calaamaysatid zone-kaas ayuu ku dhex jiraa support-ka sidoo kaleeto Goldie in uu baayahay waxaa kusii sheegayo candle-kani uu ku xirmay strong buy sidoo kale daily markaad joogtid
waxaa ku dhahay golli impulse kale ayuu sameynaya ilaa inuu gaaro eriyadaas ayaa macquula golli uu soo taabto. markaad timaadid 4 hourka waxaa sii arkaysaa intaan ayaa haddana si analyze garaynaysaa ogaatid jihada uu aadayo. kadib waxaa sameynaysaa intaani correctionkaas oo galay ayaa waxaa ka ogaanaysaa golli jihada uu aadayo. markaad sidaas trendline u saaratid waxaa sameynaysaa waxaad tegaysaa 1 hourka. mar walba oo taamyada yar aad sii geysatid waxaad helaysaa entry. markaad sidaasi taamyada 1 hourka u timaadid trendline-kaagana si saxan u saartid golli waxaa arkaysaa inuu ku jiro maxaa lahaa in uu sameeyey. markaad fiirisid golli waa uu soo dhaqaaqay. markuu soo dhaqaaqay kadibna waxaa arkaysaa golli in uu sameeyey maxaa lahaa move dheer oo buy ah sidoo kaleetana oo gala correction. waxaa aragtaa in uu sameeyey correction golli had yartaa marka waxaa macquula inuu sameeyo uu jibiyo meeshaani kadibna uu kor ka aado. gollina meeshan waa uu jibinayaa sida maxaa la 4 hour kaaga sheegabo ilaa eriyada oo tagi kaleetana golli waa ilaa iyo eriyadaas inuu gaaro maxaa la 1847 ilaa iyo 1862 inuu gaaro golli. sidoo kale waxaad sameynaysaa saad ugu sii faa'iidaysatid had yartaan waxaa aragtaa markaad sidaas u saartid trendline-kaaga golli markuu marayay tusaale ahaan hadda markaad sidaa u saaratid waa kana hadda waa si saxan oo waxaa arkaysaa hadda golli xagga ku dhacay lasoo celiyey sidoo kale uu xagga cugsaday haddana lasoo celiyey. marka lasoo celiyey golli waxaa arkaysaa markaan waa kana waa uu jibiyey laakiin fake ayuu noqday oo isla markii waa uu soo daatay balse laakiinse markaan ayaa saxan oo golli waxaa arkaysaa marka uu jebiyey oo uu ku laalaabtay pullback ayuu ku sameeyey trendline-kaagan wuxuu saxan yahay markii qiimaha laga celiyey 2 meel. hadda kana trendline-kan kor ka saaray inuu saxan yahay waxaa ku ogaanaysaa golli waxaa arkaysaa in 2 meel laga celiyey markaana waa uu jebiyey pullback ayuu ku sameeyey kor ayuu ka aaday oo inta waxay ku ahayd entry ayay ku ahayd oo buy ah ka dhigi karta golli. sidoo kale entry kugu dhow waxaad maxaa lahaa had yartaan ayuu sameynayaa oo had yartaan markaad qiimahan soo dhaweysid meesha oo hadda maraayo waxaa arkaysaa inay tahay resistance waad cabiranaysaa. markaad cabiratid mar walba waxaa saaranaysaa rezone ayaa dhiganaysaa oo boodiga iyo wiigaba waad cabiranaysaa. hadda markaa sidaas u cabiratid waxaad fahmaysaa golli markuu tareenkan pullback uu ku sameeyey sidoo kaleetana had yartaan wuxuu jibiyey maxaa la lahaa resistancegii. markuu jibiyey hadda waxaa arkaysaa inuu haddana pullback ku sameeyey oo golli haddana move kale oo buy ah uu sameynayo oo kor sidaas ku aadayo. sidoo kale resistancegan waa kana sidoo kaleetana intan waa resistance adag oo meesha waa laga celcelinayay markaanuu jibiyey laakiin waxay noqotay fake breakout ayay noqotay uu soo laabtay oo wuu cuskaday resistancegii oo markuwaad oo kor u jibiyey. sidoo kale xitaa waa kana hadda kursi aadi waxaa kusii dareemaysaa mar walba candleliska uu ku xirmada ayaa la fiiriyaa. tusaale ahaan hadda candlekan waa kana meeshaan marka uu jibiyey waa kana meesha hadda marka uu jibiyey wuxuu sameeyey fiiri candles pure ah oo buy ayuu sameeyey sidoo kale 2 candle oo rejection ah oo qiimaha kusii sheegaya in uu buy yahay ayuu sameeyey balse waxaan iska soo dhacay oo pullback sameeyo soo ku siray oo astiin golli oo sii daadanaya. marka balse candleskana ku sii cadeynay inuu golli uu buy sii aaday
wuxuu rabaa ha iska soo daato laakiin kor waa uu soo aadaya. Marka hadda waa kana marka wuxuu sameeyey fiirisan marka uu soo daatay haddana wuxuu codsaday resistancegani oo ebel ayuu codsaday oo uu kasoo daatay balse markaa waa uu jibiyey. markuu jibiyaa deertaan bullback ayuu ku sameeyey candlekani hadduu buy ku xirmado goldii wuxuu sameynayaa markuu furmado cawada xilliga dambe in uu dhaqaaq buy sameeyo meeshaan uu ku laalaabto kadib uu kor aado ayay u badan tahay. sidoo kaleeto markii aad 15 minuteska sii geysatid kana 15 minuteska markaa sii geysatid goldii kana adeerta bullback uu ku sameeyey inuu ku laalaabto ayaa macquul ah kadibna sida ku sheegay uu kor aado waa ka faa'iideysan kartaa. markaad waxaad sugaysaa 15 minutes oo kaleeto confirmation badanaa lagama dhigto laakiinse 1 hour oo kaleeto okay 1 hour ka sug inta oo candlekaasi uu buy ka noqonayo. tusaale ahaan oo kale hadda waa kana markuu hadda goldii trend line-kan inta saaran tusaale ahaan bullback waxay ku fiican tahay trend line-kan markaas sidaan u saaray goldii wax badan uga faa'iideysatid. hadda waxaa arkaysaa marka uu jibi waa kana markaa breakout ayuu sameeyey breakout markuu sameeyey waxaa arkaysaa inuu kor aaday markaad waxaa suginaysaa intuu bullback ku sameynayo trend line-kaaga iskama waaleysid. markaa bullback ku sameeyo oo candle buy sameeyo markaas waa uu ku saxan yahay qiimaha balse laakiin waxaa aragtaa markaan labaad in uu soo daato trend line-kaagii xoog ayuu jibiyey haddana hadda waa suganaysaa iskama waaleysid. hadda waxaa arkaysaa goldii markuu soo laabto meeshaas xoogsaday uu soo laabtay markaan ayuu haddana jibi waa kana markaa markuu si sax u jibiyey waa kana bullback uu ku sameeyey oo candlekaas salka ah weli waxaa arkaysaa boodiga wuxuu ku xirmaday trend line korkiisa ayuu ku xirmaday sidoo kale wuxuu sameeyey candle kale confirmation buy kadibna kor ayuu aaday. sidoo kaleetana hadda waa kaa sidaas ayuu sameeyey hadda candlekan markuu buy ku xirmado wuxuu sameeyaa just ku laalaabta iska macquule oo maxaa la correction yar oo galo balse laakiinse in uu dhaqaaq sameynaya ila tahay korkaasi ayaa sababtoo ah goldii isbuuca ayuu wuxuu sameynayaa meeshaan ayuu ku laalaabanaya haddana waa uu ka dhex baxay areada. marka goldii isbuucan sidaas ayaa macquul ah insha allah signalkiisana waa soo diri doonaa oo maxaa la isbuucyada deertaa lasoo dhaafay aad ayaa ugu mashquulnay oo waxaa ku mashquulay applicationkii haddana alxamdulilah applicationkii maxaa lahaa ciladii oo ebel dhanka paymentga oo naga haysatay waa xalinay waan idinla wadaagi doonaa informationkiisa. sidoo kale isbuucan signalska gold waa soo diri doonaa ilaa ayaa kaleetaba waana mahadsantihiin.